waryaadaheen naagihii dhahay mee najax waa uma saysanahay naagaas caawda noqon lahaydeen meel gaar leh hormada gaar lahaydeen laakiin la socdaya dalaq maseer iyo najax kale lama simo iyo inuuna ninku dambi lahayn ogaada afar baa ilaahay u baneeyo adduunyadu waa maadeys dadkuna way matalayaan koonkan aynu ku nool nahay maalinba waxbaa soo kordha oo baraha bulshada ama social media lagu arkaa isla markaana dadka daawanaya ama ku tixan baraha bulshadana waxay ku noqotaa la yaab iyo fajac iyo ama kaagintuba haddaba toddobaadkan hadaleynta ugu badan waxay ahayd fanaanka Xariir Axmed oo jigjiga ku dhigtay meher la yaab leh iyadoona jigjiga ay joogto xaaskiisii hore ama bahweynta Najax Xaraare inkastoo Najax Xaraare naftirkeeda lagu arkayay baraha bulshada gaar ahaan barta ay ku leedahay Facebook iyadoo qoraale kala duwan soo dhigaysa oo ku aadan mar iyadoo dhehaysa guursaha ma guursan waxa ka baxday ballamo in dhex yaalay aniguna waxaan ka bixi doonaa ballamo hore marna waxa lagu arkay iyadoo dhehaysa xaajigiga Xariir aniga ayaa u fasaxay oo aan dhahay guurso nacab ku darbiyada ha jiro cadawguna darajada ha waayo dadka qaarkii arintaas waxay u fasireen inay tahay maseer haddaba gabar la dhalatay gabadha uu guursaday Xariir ee lagu magacaabo Xayaada ayaa muuqaal soo duubta afka ayna furato waxayna sheegtay in Xariir uu yahay nin rag isla markaana afar ilaahay u baneeyay uuna guursan karo miduu doonana uu la hasaawi karo waxa ay fariin u dirtay dadka bumbuuninaya arrimahaasi ka hadlaya isla markaana waxa ay si gaar u la hadashay xaaskii hore ee Najax Xaraare iyadoona ay ku tiri walaal isdaji ninka ilaahay afar ayuu u baneeyay waa uu guursan karaa waa uuna labaysan karaa wuu saddexaysan karaa wuuna afaraysan karaa kaliya waxa haboon in ninka marka uu gurigaada joogo inaad ku kalsoonaato isdajiso isla markaana aad alla tala saarato gabadhan waxa ay sheegtay isla markaana ay fariin dheer u dirtay dadka Xariir wax ka sheegaya waxa ay tiri anigu waxaan la dhashay bay tir Xayaad oo Mirwada Xariir mana ogolaanayo in Xariir wax laga sheego isla markaana dadka Xariir wax ka sheegay bay tiri inay ka waantoobaan ayaana ugu baaqaya gabadhan oo carro laga dareemaya barta ay ku leedahay TikTok muuqaalkan gaaban soo dhigtay iyadoona si kulul uga hadashay fariin u dirtay guud ahaan dad yooga isticmaala baraha bulshada amaba ku tixanba social media gabadhan ma aysan sheegin halka ay joogto inkastoo la qiyaasay inay ku sugan tahay magaalada Jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo halka uu meherka ka dhacay meherka Xariir Axmed uu ku guursaday Xayaad inkastoo xaaskiisii Najax Xaraare ay halka ku sugan tahay waase arin la yaab iyo fajac ku noqotay in fanaan Soomaaliyeed uu aroos ku dhigto magaalo ay ku sugan tahay xaaskiisa iyaduna ay dusha ka eeganayso waxyaabaha ka socda magaaladaasi uu xaajigeeda arooska uu ku dhiganayo haddaba Najax Xaraare kullay isbuucan waxay u ahayd isbuuc la dhihi karo maalin mugdi ah maadaama xaajigeeda uu labaystay isla markaana uu guursaday xaas labaad u tahay iyada bahweyn halka gabadha labaad uu guursadan ay tahay minyaro ama dangalo ama bahlabaad waxa ay Soomaalida u taqaano gabadhan waxa ay sheegtay in Xariir uu xur yahay isla markaana magacyada Xariir iyo Xayaad marka la fiiriyaba ay yihiin dad isku soo baxaya isla markaana noloshoodu ay iska soo daahday waa horan ay habooneyd inay isku yimaadaan isla markaana ay mustaqbal dhistaan laakiin wax walba min Allah ay ku qoran yihiin waqtigu Ilaahay calfay ay isku imaadeen isla markaana noloshoodii ay buddigteen isla markaana waxa ay diyaar u yihiin guur ama aroos gilgila guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga ay ku dhigtaan arooskaasi oo ay ka soo qaybgali doonaan sida ay sheegtay gabadhan fanaaniinta ugu waaweyn ee geyga Soomaalidu degto isla markaana aad u taageera saaxiibada dhowdhowna la ah fanaanka Xariir Axmed ee hadda calanka uu babanayo gabadhan waxa ay sheegtay in walaasheeda Xayaad ay tahay gabar nasiib badan maadaama ay gacanta ku dhigtay fanaanka reer Jigjiga Xariir Axmed inkastoo sheekadu ay noqotay mid markaasi saameyntada leh
aadna loo hadalhayo toddobaadkana waxay noqotay toddobaadkii Xariir Axmed. haddaba sheekada ayaaba ah sheeko toddobaadla ah oo toddobaadba waxbaa soo kordhay isla markaana waxbaa dim yiraahda. haddaba sheekadan kolley dadka qaarkii waxay u fahmeen inay tahay barankii, laakiin markii la arkay kadib guurka Xariir Axmed ee uu gabadhan ku mehersaday, qaarkood waxay tilmaameen inuu ku mehersaday lacag dhan $20,000 Mareykanka, halka kuwa kalena ay tilmaamayaan inuu ku mehersaday 100 garan oo dahab ah. waa sheekada toddobaadkan iyo toddobaadyadii horeeyay maadaama ay noqotay mid la isugu faano heblaayo meeqa lagu meheriyay, heblaayo arooskeeda muxuu ahaa, heblaayo alaab noocee loo dhigay. waa sheekada sanadkan iyo waliba toddobaadyaddan iyo bilihii ugu dambeeyay ay noqotay mid aad loo hadlayo, xataa waxa uu saameeyay dadka markaasi haasaawaha ama shukaansiga sameynaya ee ku aadan marka ay gaaraan ama ay damcaan inay guur dhigtaan in ay soo hadal qaadaan heblaayo iyo hebel intaas bay dhigtaane annaguna waa inaan intaas dhiganaa, heblaayo intaas ayaa meher looga dhigay, aniguna waa in intaas meher liiga dhigaa, iyo sheeko kale oo markaasi baraha bulshada lagu arkayo. haddaba sheekadan ayaa saaxiibayaal waxay noqotay mid markaasi dadka aan waxba haysan nolol maalmeedka la dagaalamaa ay markaasi walaaci walal ku abuurto, maadaama aysan awoodi karin $100 ka badan ama $500 ka badan in aysan ku mehersan karin gabadha ay doonayaan ama ay jecel yihiin ama ay nolosha la wadaagaan. haddaba gabadhan la dhalatay xaajiyada ama xaaska Xariir Axmed ayaa waxa ay ugu dambeyn fariin u dirtay guud ahaan youtuberada Soomaaliyeed oo ay tiri waxaad qaadanaysaan ama aad ka sheekeynaysaan tuuji haddii aad joojiwaysaana aniguna waxaan diyaar u noqonayaa inaan markasta soo fariisto baraha bulshada si markaasi aan jawaab cad idinkaga siiyo. bal kilibka yar saaxiibayaal in la daawada. waryaadaheen naagihii dhahay meena jaxwa u masaysanaay hadda ma masaysantiin mise waa kadigi masayrkii maadaama ina jaxwa galaatiin afar boos buuxiyo oo saddex kale banaan uu guursado Xariir. wallahi naag adag waaye, naagaas aan wada noqon lahaydeen meel gaar leh hormada gaar lahaydeen, laakiin la socdaya dalaq masayr iyo najax kale lama simo iyo inuuna ninku dambi lahayn ogaada afar baa Ilaahay u baneeyo. والله ناق أذق واي كرتيبين اللي هذا ناقة قلقلي وسكي قلقلي ولقي بعاء هيا سيد عرقة هرتا وايد سلامة مركو كوباد مركا لبانا دادك إسوار لها قبيلة ستة تاي أنا قبيلة ستة مئيشي حياة قبيل مؤوهي لناي ولا شيء إلا دلتي وإسلا سو كورني أو يريد إسلا سو قادني وأنا قف كست أو حتى يدقيسني قف ولا شيء سدير وجورسد أم قف كله هلا جورسمين له جورسني بس الله كيسه وأصو همبلينا يا وليه ولا شيء همبليو أنا مركب ولا شيء أو همبلي ما حيقول جيده وأنا قبل قف موجه همبلينا أي حريرنا وإنا ذرك أيضا وإنا ذرتي ولا لا حتى أوجد النيمة كلا جتكو ومحمد سمير النيمة لا جتكو الرئيس النيمة لا جتكو وأسكسي حسين أجري حسين أسكسي النهاي وسدوا وان إسلا سوكرني مركب أحمدين شيء أجد لما هذا نيو همبلينا كون يكوجر حتى الله همبلي حياة همبليو reerkaaga kii lagu nastay lagu nagaado ilaaha ka dhigo hadda leeyahay yaa wax iga qaadi kara niyo iga dhamaada Soomaali Maxamed bismillah حياة عبد الحكيم عبد الله فارح وولدي وكاشي ومهر كيدو ياهي بقول جرام ذهب هي كوغوري waxaan halkan ka cambaaraynayaa oo dhaliil u soo dhigayaa hadduu alla ku idmahayo oo maaragtay oo dhaliil buuxda
aanu haddaanu nahay bahaba ilma qaylo quuto aanu leenahay cambaarayn waa ninkii horta magaciisa maxaa waan iloobay suu balan soo xasuus saaxiibayaal waa daawatan haddii aad nagu cusubtiina subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddii aad horey inoola joogteen madaxaad inoo saarantihiin daliil ammaan bogaadin tale iyo tusaale haddii aad inoo haysaana qaybta commenti inoogu reeb waan idin akhrin doonaa